asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtida youtube mahadsantihiin waa arkay kommentiyadiina soo laabasha wacan maxaa kaaga dhacay youtubekii baryahan waxba maada soo dhigin iyo waxyaabo lamid ah waa mahadsantihiin maanta waxaa idiin wadaa barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore barnaamijkan waxaa la dhahaa 6 qoraal iyo sheeko 6 qoraal markaa idin leeyahay waa 6 qoraal oo qosol ah 3 markaan idin akhriyo hal sheeko qosol idin soo dhexgelin doona waa barnaamij yar oo kooban oo aad ka heli doontaan waa ogahay waxa soo weydiin doontaan filmadii iyo sheekooyinkii dhaadheera maxaa ku dhacay insha Allah ayaguna waa ay imaan doonaan oo asbuucii 2 mar ama hal mar baa soo gelin doona insha Allah la socod wanaagsan sheekadeen u horeysa waxa ay ku bilaabanaysaa safiirka u fadhiya China Soomaaliya ayaa isaga oo Muqdisho shir uga qayb galaya ayuu yiri hawa China Shiyu China Xiao Hi waa Somaliland taas oo loogu fasiray China waxa ay la socotaa arinta Somaliland خلاص waxa uuna agtiisa soo dhigtay gantaal macbal boostiga labaad waxa uu leeyahay sida tan inta aanan boostiga bilaabin wax yar aan idinkaga hordhacno sida ogtihiin Puntland iyo Galmudug dhalinyaro ahaan waa la isxamaasadeeyaa oo waxa ay dheelaan darbi mudug 1 Agoosto oo ogtihiin in ay tahay maalinta Puntland la aasaasay Galmudug waxay dhahdaa waa maalin madow oo waxa naga dhintay ciidid isla mar ahaantaana 14 Agoosto waa maalinta la aasaasay Galmudug musharax burka isaga oo halkaas ka duulay waxa uu yiri 14 Agoosto waa maalin madow waa maalintii uu dhintay awoowe Cabdiraxmaan bin Jabarti Aldaarod Ilaahay ha u naxariisto jannadana ha siiye soo duceeyay awoowe walaalayaal خلاص halkaas uu iska bareejeeyay boostiga saddexaad waxa uu leeyahay naas dhacay iyo naf baxday midkoodna dib uma soo laabtaan خلاص halka waxaa nagu dhaaftay 3 boosti oo qosol oo ina ka hesheen rajaynayo waxaan ugu xigi doontaa sheeko aad u qosol badan sheekaduna waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan hadda ka hor baa nin waxa uu joogay magaalo waxa uuna ka ahaa masaajid imaam ninkaasi quraanka si fiican uma aqoon dadkan waxa uu ku tujin jiray quraamada yararka diinta xataa si fiican oo zaid oo muusa aqoon maalin maalmaha kamid ah magaaladii waxa tagay wadaad tabliiq ah waxa ay ku soo dageen halkii masaajid ee ku yaalay tuulada isla mar ahaantana waxa ay joogeen asbuuc ninkaani maalin walba waxa uu ku tujiyaa masaajidka qul huwalla tabat qul a'uudu birabbil falaq iyo quraanka suuradahaas hoose waana ogtiin sida caadada ah salaada subax waxa lagu tujiyaa suurada dhaadheer subaxii dambe salaadii subax asaga oo ku jira salaada wuxuu isir wadaadadan tabliiqa iska lahada dadka iyisa ku ceebayn markii uu salaada u istaagay wuxuu ku tujiyay erayadan innaha abqaarun yawma idin 30 wa hiya 10 wuxuu iskala hadlayaa wadaadada tabliiqa carabiga xoogaa uu gareenayo wixii innaha abqaarun kuwan waa lo yaal yawma idin 30 maalin walba 30 bay siiyaan biruhi 10 war 20 aan qaatay idinkuna 10 qaato gabiga siiyay xariijinaya in sheekadana ka heshaan boostigan xiga waxa uu noqonayaa nin guurdoon ah iyo naag din raadis ah labaduba waa ay hadal macaan yihiin anigu markuu guurdoon yahay iyo naagtu markay din raadis tahay shaaftada afka wax kaaga qaadayaan خلاص waa ku dhamaad boostiga xiga waxa uu leeyahay nin foolxun gabar ma khiyaamo sababta oo ah halganka uu soo maray buu og yahay walaal maxaa kugu dhacay wili channelka subscribe noo maada saarin channelka subscribe noo saar hadaa page-keena Facebook kala soconaysidna follow na soo dheh mahadsanid boostiga u dambeeya waxa uu leeyahay oo lixaad markasta oo aad jiifsato u ducee lamaanahaaga haddii aadan lahayn wadankaaga isaga ducee waa iga waano waa run haddii lamaana lahayn aad u duceysan wadankaaga u ducee uu saxan yahay hoostigaana warnabadgale asxaabi inay ku dheereeyo marha boostiga insha Allah boostiyadan yararka oo gaaban baa noo bilaabay ayagana idin soo taminaya mana joojin boostiyadii sidii filmadii codka la saariyay iyo sheekooyinkeedii insha Allah la kulanti dambe
waxaan rajeynayaa inaan habeen walba boostigan idiin soo dhigo. haddii aad garanaysid sheeko ama boosti yar oo qosol badan commentiga noogu reeb ama igu soo meeshin garee page-kayga walaaltooni follow ka dhigo ama Facebook-kayga caadiga Marwan Jaamac. insha Allah labadana ciwaanka ka arki doontaan. haddii ay noqoto sheeko naqancisa iyo qoraal yar oo dadka xiise geliya insha Allah waa soo qaadan doonaa waliba annaka aan magacaaga ka jarin. mahadsanidin dhammaan.